bulshay meel kasta aad joogtaanba waxaan idiin hayaa fariin cusub oo waa tuma waa sharikada duulimaadada ee tikadhada ee Furqaan Travel ee ku taala bartamaha Birmingham oo idinku qadmeynaysa si la yaab leh hufan oo wanaagsan oo aad loo jeclaystay dalkii hooyadaad booqanaysa iyo dhulka barakeysan Makka al-Mukarrama Madiinatul Munawwara dadka doonaya inay xajka iyo umrada tagaan waxay ugu tala galeen diyaarado toos oo British Airways London ilaa iyo Jidda kadibna la dejinayo hotelka weyne Grand Samsam ee ka soo horjeeda xaramka iyo kan kale Madiina ee isaguna 5 star ka oo dhamaantoodba 5 star ay yihiin Royal Rayyan kadibna waxaa la dejinayaa maalmaha kadib taambuugada ama teendhooyinka casriga ee VIP-da meel kastoo aad joogtaan yaa la moogaan inaad khidmadiina iyo hawlihiinaba u dirsataan Furqaan Travel intii horay uga qidmaysay aad u jeclaysatay inta kana ay jeclaysan doonaan ana jeclaystay iyada jeclaystay isaga jeclaystay kulligooda jeclaystay adinkuna jeclaada Furqaan Travel yaa la moogaan hawsha idin qabatana waa la hubiyay waxaana ay xubin ka tahay hay'adda caalamiga ah ee Atol oo ah mid iyadoo hubinaysa safaradaada iyo socodkaaga si socod iyo soo socodba hadal badan ee han ma buuxiye la xiriira maamulaha sare Cabdiweli iyo asxaabtiisa oo gacmo furan iyo niyad samaar idin ku soo dhaweynaya wixii faahfaahina shaashada ka daawada بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الملك استوى نقدي هانيسان وبرنامج جارة وكمدة برنامج جدا مركزي أنو أرجنا إن داود ياش الصومالية الملك استوى يجوجنا كيف أيدي كران أرنك مركزي لقى هذا اليوم تضبط كني برنامج كني وحو كسب سنة هي شركة دارنا عدو الماضي كندا فرقان ترافل أو فلقي دويني هي مجالة برمنهام وضن كبريتن لا مكلا دونا دعالة أدونك كله sanooyinkii ugu dambeeyay ayay ka howlgalaysay meelo badan iyadoo dad badan oo Soomaaliyeedna ay ahaayeen kuwa macaamil la sameeyay ha noqdaan dadka iyagu taga dhulka barakeysan ee Makka al-Mukarrama Madiinatul Munawwara ee boqortooyada Saudi Arabia ama ha noqdaan dadka kale ee goobaha kale booqda iyagoo markaas mid iyo qoys intaba ah ma aha barnaamijkii ugu horeeyay ee Furqaan Travel halkan aad ka dheehataan ee dhowr jeer hore ayaad dheehateen barnaamijyo lamida kuwan oo markaas xiriir aad la sameyseen adinkoo meelo kala duwan jooga barnaamijka waxay gala qayb galay oo stuudiyaha London ila fadhiya oo si toos ah u dheehanaysaan waa Cabdiweli oo ah mulkiilaha iyo waliba maamulaha sharikada Furqaan Travel oo aan ku soo dhaweynayo stuudiyaha London kadibna aan weydiinayo aniga oo halka fadhiya adinkuna si aad u dheehataan inuu bal warbixin kooban iyo faahfaahin naga siiyo Furqaan Travel asaaskeedii iyo ujeedadii ugu weyneed haya Cabdiweli bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa kafa usmi Allahu liman da'a وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم مركو غوريسو وانكو سلام يا عقتا سلامة إسلام كان كوغو سلام السلام عليكم وعن كل سلام يا بهوينتي الصوماليات ويقا داوانيسي تلفزيون كا ميل كستو أدونك إيكا جوغان سيدو كلا وحن سلام يا شقالها ستاف كا تي في يونيفرسال haddaan intaas uga baxo cagta shirkadda Furqaan Travel sidaan hadda horeba uga hadalnay kullay waxa keenay baahiyo aad u tiro badan oo ka jiro dalkan UK ama gaar ahaan magaalada Birmingham si ummadda Soomaaliyeed oo Yurub aad ugu soo badatay khaas ahaan magaalada hadda ay maaragtay xafiiska head office-kiisu ku yaalo Birmingham ay Soomaalida aad ugu soo qulqulayaan in dadkii ay helaan service maaragtay dad walaalahooda ama adeeg ay ka heli karaan qof afska Soomaaliya ku hadlayo hadarna ayaamahan aad iyo aad ba wadankii waxaad moodaa inuu stable u noqday uu soo degay dadkii aad bay u safrayaan marka waa aad iyo aad bay waxay noogu muuqatay waagii aan asaasaynay 5 sano ka hor inay arintaas muhiim tahay marka arintaasi asbaabo badan oo ay ka mid tahay in dadka Soomaalida tigidho badan oo qalad la siiyay dad badan waxa jiro afkii Ingiriisiga si fiican aan u fahmayn oo u baahan in loo sharaxo tigidhada qaabkooda waxaan isrin marka maadaama dadka Soomaaliyeed meel kasta ay ka dhiban yihiin bal ha helaan travel agency kaga haqabtiro afkoodii Soomaaliyeed duulimaadyada holideeyada xajka umrada iyo meel kasta ay aadayaan waagaag marka la fiiriyo xajka iyo umrada dadka Soomaaliyeed waa dad muslimiin ah ama dhulkii ha joogan ama qurbaha ha joogan dadka UK degan iyo Birmingham dhowr jeer hore halkan barnaamijyo aad ka sii deysay dadka umrada ayaad geysaan xilliga xajkana xajka ayaad geysaan maxaa isbedel ah oo arrimahaasi ku dhacay marka la fiiriyo xadadaada dadka la geynayo oo kale waqtiyada la tagi jiray umrada oo kale maxaa yeelay warar ayaa jira sheegaya in xilliga umrada tiradii dadka xajka laftiisa dadkii sidii u tagi jireen maadaama meeshii dhismo xoog leh oo ka socday arrinta ka waran acto aad baad u mahadsantahay kullay barnaamijkan waa barnaamij bulshada Soomaaliyeed khaasatan UK ku nool aad u anfacayo su'aasha aad weydiisana waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah umrada waagii hore
unlimit bay ahayd dadku ma aragtay intay ay doonaan bay ku noqon jireen laakiin wasaaraddii xajka hadda waxay soo rogtay maadaama xaramkii la dhisayo oo la rabo cadadda dadka xajinayo inay gaaraan 10 milyuun in qof walba 2 wiig uu hadda cumrada tegi karo awal waxay ahayd 4 wiig qofka inuu tegi karo hadda laakiinse si loo xadido dadka ama dadkii loo siiyo ma aragtay fursad inuu qof walba soo cumraysto 2 wiig ka badan hadda cumrada lama ogola sidoo oo kale xajkana 20% baa la dhimay 20% baa la dhimay sanadadii la soo dhaafay sanadkan oo aad iyo aad xajka loo sii dumiyay sida arkayso kacbadii wareegeedii oo dhan waa la qaaday oo waxa la rabaa in la fidiyo maadaama waxa la rabaa halkii mar inay dawaafaan ilaa 4-3 milyan oo qof sidoo kale sanadkan waxa loo sii malaynayaa in 30% la dhimi doono marka waxay kaloo soo saareen shirkadihii ku shaqo lahaa cumrada oo kale hadeer waagi hore dadka waxaan u fududeyn jirnay fiisooyinka in fiisihii tigid la siiyo laakiin hadeer waxa la yiri qof walba hoteelka uu degi lahaa waa in la geeyaa safaaradda waxa kaloo ay safaaradda soo codsatay in qof walba uu talaalkii rasmiga ah uu wato lagu xareeyo waagi horena conditionadaas iyo shuruudahaas maysan jirin aad iyo aad marka la fiiriyo dhinacii cimradii xajkii waad ka hadashay dabcan faahfaahin way soo bixi doontaa marka la fiiriyo shirkaddan Furqan Travel waxaa jirta tikidhada shakhsiyaadka aad goysaan mooyaan iyo dadkan xajka aad iyo cimrada mooyaan inaad samaysaan nidaam qoysaska iswata ama shakhsiyaad kale aad ku geysaan goobaha wanaagsan muuqaalkoodu fiican yahay ee dalalka islaamka oo kale sida Turkiga oo kale sida wadanka Morocco oo kale Istaga Imaaraadka oo kale arrintaa bal iga waran actow mar labaad waxaad moodaa qoysaskii Soomaaliyeed waagii hore waxaan ma aragtay holidayada aad umaysan aadi jirin laakiin sanadada dambe waxay barteen sida Turkiya Tunisia Morocco xilliyada waliba qofka hadii uu horay u sii booking garaysto waxa laga yaabaa familka iswato ama 7 ka koobnaadaan ama 8 ka koobnaadaan in ay helaan hoteelada 5 starka 4 starka diyaaradii baa ku jirto waxa ku jiro qadadii quraacdii cashadii transportationkii waxa kale oo ku jiro meelihii holidayda loo geyn lahaa sida waxay geeyaan meelo qalcada oo buurooyina maalin waxa jirto badda la geyn doono oo dadka ay badda ku soo qaadanayaan ilaa 8 saacadood oo doonta laftigeeda xataa maalintaas qadada ay ku leeyihiin waxa la geyn doonaa meelaha ciyaalka oo kale ay jecel yihiin biyaha ay isugu imaadaan biyaha ay ka dhacaan marka hadeertaan Easter holidaydan soo socoto ilaa iyo in ka badan 15 family ayaa waxay booking gareysteen holidayadaas Tunisia Morocco Turkiya sidoo kalena waxa jiro package umra ah oo hadda baxaya 26 oo ayagana ku sii jeedo halkaas dhulkii barakaysna oo 26 bisha March bay baxayaan insha Allah waxaan u malaynayaa ilaa iyo inay ka dhiman yihiin 15 qof marka la fiiriyo dadka shakhsiyaadka ah ee dalkii Soomaaliya tagay ee ka baxaya London oo kale Birmingham oo kale tigidkooda isku sii xirka haduu qofku Nairobi marayo hadii uu qofku marayo Istaga Imaaraadka Carabta oo kale maxaad arintaas aad ka qabateen xagmadigow ayamahan diyaaradaha Soomaaliya horta aad bay ugu soo badanayaan sida aan maqashay hadeer Imaaraat ayaa waxay bilowday laftigeeda Hargeysa dowladmaadyadeedii ku dartay inay bishan saddexaad 27keeda ayay bilaabanaysaa dowladmaadiyadii aad bay waxaad moodaa Jubbo iyo Daalo waad maqashay inay isku darsameen oo ay noqdeen one company مثل qofka hadda Muqdisho kala u socdo choices buu haystaa choiceskaas waxa kamid ah inuu halkan Turkish Airlines ka raaco Istanbul sii maro kadibna Muqdisho tago dad baa jira waxay ku leeyihiin anaga ma rabna Istanbul waxaan rabnaa in aanu ma aragtay Dubai sii istaagno 2-3 maalmood oo dadkii iyo eheladii iyo familkii shopping aan uga sii gadno ayagana waxa la saarayaa diyaarado badan sida Imaaraat baa la saari karaa British Airways baa la saari karaa hadhowna halkaas waxa laga xirayaa Jubbo iyo Daalo oo isu tagay oo hadda hal diyaarad isku noqday halkaas Hargeysa ayadana sidoo kale waxa tagtay Ethiopian Airlines oo ayada duulimaadyo rasmi ah 5 days ma aragtay weeki ilaa 6 days ayay tagtaa waxa kale fursad loo helayaa Imaaraat ayadana way bilowday hadeer duulimaadyo cusub bay ka bilaabaysaa bishan gudaheeda waxa kale tagta Jubbo iyo Daalo dhanka Boosaaso iyo Gaalkacyana waxa taga Jubbo sida hadda ma aragtay ayaamahan ba socotay Boosaaso waa la xiray airportkeedii oo hadda airport caalami ah laga dhisayaa sida aan maqlay diyaaradii waxa loo wareejiyay Jubbo Garowe ayaa loo wareejiyay marka qofkii hadda Boosaaso u socday
garow wuu ka degayaa qofkii gaalkacyo u socdana destinationkii caadiga ayuu ka degayaa jubbo kaliyaana tagto kuwaas waa hagaag aad baad u mahadsan tahay waa kaaga mahad celinayaa sida aad u siisay faahfaahinta guud ahaanba dadka markan qaybta telefoonka bal aan eegno dad badan baa barnaamijka dheehanaya weli waxaad nagala socotaan telefishinka caalamiga ee universal studio london iyo barnaamijka furqaan travel laynka telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu السلام عليكم. عليكم السلام walaal kusoo dhawo barnaamijka magacaaga halkaa joogtay عاجبة haa walaalo magacaa أبو علي دا فردوسيس وعن كصامع بريستول. hayo walaal kusoo dhawo أبو barnaamijka daawadeysay أدي عبد الولي السلام الفرقان ترافل. si fiican waa kaa qaadna walaal intaa kadib maxaad oran lahayd أبو وحن دي لا ددوينا الصوماليات الفرقان سي آد في عم بنوع عاوسي waa gartay مركا وعن شعلان لا ددوينا ما دي دوفيان وتقدر قوسنيان مركز العد بحنيان إن الفرقان الحريان مي فهمتي. aad iyo aad adigu fardowsa weli ma raacday mase dad raacay ayaad la sheekaysatay بسم الله الرحمن الرحيم. ويجي ورا هولديز شنو تبانكي بشان فبراير haa باكودا في ديارده ما فهمتي haye بسم الله الا انت ديارده كعيسي ولا سحرير يا عبد الفتاح aad iyo aad marka waxaad leedahay arrinta ayaan la moogaanin adigoo fardowsa ah marka ilaa iyo wuxuu maxaa ila soo hadlay inta dibay joogay wuxuu diyaaradda miskareenin marka waa aad iyo aad u qiimo qaayib badan ma fahantay aad iyo aad baan u fahmay aad baan kuugu mahad celinayaa fardowsa adigoo ahaa qofkii ugu horeeyay Soomaalida waxaan ka codsanaa maadaama uu yahay qof si fiican dadka u caawinaya Soomaaliyeed lacagtiina bixinayaan inay ajasiga la xiriiraan aad baad u mahadsan tahay waa kuu mahad celinayaa adoo barnaamijka qofka ugu horeeya fardowsa laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. haa waa kusoo dhaweynayaa walaal magacaaga halkaa joogteed عقد واكو سلامي وحال يراهدا وهوي سوماليات. haye waxaan ka soo hadlahayaa magaalada Birmingham. haye aad baan maaragtay wiilka dhalinta yar haa ugu hambalyeynaya shaqada uu u hayo bulshada. waana shaqo aad u fiican. waan ku boorinayaa dadka Soomaaliyeed oo Birmingham degan iyo weliba UK wherever ay ka tahay inay raacaan sababta oo ah anigu waxaan raacay dhowr goor waxaan u raacay 3 goor oo xaj iyo cumro ah waxaan u raacay Dubai maxaa la yiraahdaa holiday package ah si fiican hadda waxaan ku tala jiraa biidmillahi tabaaraka wa tacaala cumrada uu ka dhawaajiyay inaan 24ka saaco waa nin aad iyo aad muxtarim u ah waa nin diinta fiican u yaqaana waa nin maaragtay alla ka cabsigiisa uu badan yahay waa nin meelaha uu dadka dejinaya ka fiirsada waxaan kaloo maaragtay aad iyo aad ugu dad badan oo Marocco iyo Turkiga u raacayna waan maqlay aniga weli uma raacin laakiin insha Allah waan raaci doonaa waxaan ku aad Soomaalida ugu boorinayaa inay lacagtooda geliyaan meel ay hubaan Soomaaliyana waa tigid waa ka goostay ilaa aan maray Dubai wax walba wax iga halaabay ma ay jiraan marka waxaan Soomaalida kula talinayaa inay si maaragtay lacagtooda meel ay hubaan ay geliyaan aad baad u mahadsantahay u ducaynaynaa ilaahay inuu maaragtay hawsha uu ummadda u hayo ajar iyo xasanaad in ilaahay ka siiyo amiin aad baad u mahadsantahay hooyo Soomaaliyeed oo Birmingham joogta waa ku salaam cagma dhige aad iyo aad mid lamid aan kuu soo gudbinaya walaalo laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. walaal waa kusoo dhaweynaya magacaaga halkaa joogteed walaal waxa weeye magacayga waxaa la yidhahdaa maxamuud sheekh nuur waxaan joogaa magaalada London haye laakiin waxaan ahay maaragtay nin reer Birmingham aad iyo aad markaa barnaamijka ma la socotay barnaamijka waa la socday haa cabdiweli caawa maa kuugu horeysa mase waa istaqaanin cabdiweli waan isnaqaanaa maaragtay waanan arkay reer Birminghamna waan ahay waxa weeye maaragtay masaajid aan macnaha maaragtay anigu ka ahay muwaadin ka ahay ayaa imaamkiisu raacay marka ugu yaraan dad waxaan aqaanaa markaan been iska dhowr iyo 10 qof oo raacday oo si fiican uga macnaha maaragtay abaal sheeganaysa marka waxaan kula talin lahaa maaragtay dadka macaamiisha oo Furqaan Travel ku xiran inay maaragtay ku safraan maaragtay khidmada uu bixinayo maaragtay Furqaan Travel ay bixinayaan aad iyo aad waa hadal wanaagsan weeye marka waad ku guubaabinaysaa waan ku guubaabinayaa aad baan ugu boorinayaa inay macnaha khidmada uu macnaha ninka dhalinyarada uu bixinayo inay macnaha ka faa'iideystaan si macnaha maaragtay hawlahoodu ay ugu hagaagaan waa hagaag aad baad u mahadsan tahay adigoo reer Birmingham oo ka soo hadlaya magaalada London laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا المقعد قال كات شوكتيت. ولا المقعد هو أحمد عبد القادر وحن كسر بيبسم. هيه. وحن كتر سنة مع مش الجفتة سيد توصل ولا حرير عن فرقان تراغل. واقرتي. دور شهر وهرر وهرر وصفري. واقرتي. وواحد يقدم بيسوي سوي نقط كي هذا بيشن نحلات الكذي. واقرتي. أنا جو بحيشن يتوكي بيشن دبي كقصتي. واقرتي. وحن كو أمانة يا ورث معمول عبد الولي هوش ورسل بشود وحيو. هرر ولا صفري وسيد وقيمين يوقفكم كاد معادي أنا يزوجر التليفون بس برني. واقرتي. سيد كله وحن كو أمانة السفر كي أكثر إلى 9 تلفون كله وتاجي ماشي أنوري حتى جك أوت إلى الصديق ديار ده كورة. سفيان. marka wiilkan dhalinyarada meesha fadhiya badan baan amaanaya aad iyo aad shaqo wanaagsan waxaan ku abuurinayaa Soomaalida oo dhan qof kasta interest gareynaya inuu la xiriiro for African Travel Agency hadda safarkayga dambe insha Allah bisha soo socotay badan baan travel gareeya business ahaan yar qorsheynaya insha Allah aad kala Soomaalida oo ku buurinaya in sida Cabdiweli kale lagu wada daydo waagaag aad baan kuugu mahad celinaya adigan walaal Cabdiweli waxaa jira dad Soomaaliyeed oo safra adduunyada qaarkood dhibaatooyin bay la kulmaan diyaaradaha ayay ka daahaan ama diyaaradda ayaa baaqanaysa taasi waxay keentaa culays inuu qofku ku yimaado tigidkiisii inuu ahaa mid markaa aan la qaabayn oo diyaaraddii ka haray dhibaatooyin badan bay sheegtaan hay-addii aan ka goosanna tigidku nooma sheegin bay yidhaahdaan tigidkan garantiya ma ahayn oo lama hubin arrimahaas oo dhan sida aan warbixinta ku hayo ama xayeysiiskaaga aan ka arkayna waxa aad ka tirsan tihiin iyaata ka sokow atol oo iyadoo ah qayb yani ka rajiskaraysan waddankan oo qofka siinaysa ugu dambaysta haddii diyaaraddu ka tagto ama diyaaraddii la waayo in loo raadinayo diyaarad isagoo meeshiisa jooga bal arrintaa xoogaa sharaxaad naga sii cagmadhigow waxaan u malaynayaa arrinkan inaan dhowr goor aan u sharaxnay dadka Soomaaliyeed waana arrin muhiima always mar kasta waxa jeceshahay waxa faa'iidada ay ka helayaan dadka Soomaaliyeed waliba su'aalaha calooshooda ka guuxayo ay isleeyihiin Allah caaw hadaad fursad u heli lahayd telefoonka ku gal la weydii baad shacabka ma aragtay adigoo ka wakiila baad sembri weydiisaa hadeertaan waxa jira sharci cusub oo soo baxaya oo qoliyaha atalka civil aviation-ka ay wadaan oo ah horta qof kaste oo tigid goynaya waa inuu atal member yahay hadduusan atal uusan xubin ka mida uusan ahayna qof atal ku jiro waa inuu contract ka haystaa inuu tigidhadaas uu iibin karo dadka Soomaaliyeed badana arrintaas ma yaqaanaan marka caawa fursad baan uga faa'iideysanayaa aad arrintaas u muhiim ah dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa horta in ay Furqaan Travel kaliya tigid ka gataan muhiim ah laakiin waxa muhiim ah travel agency-ga ay tagayaan inay weydiiyaan inuu atal xubin u ka yahay taasi waxay xaqiijinaysaa qofkii haddii uu safro inuu safarkiisi uu yahay safar la hubo lacagtaas la bixinaya qayb 2 baan iyo bar kamida sida hadda ka hor sheegay waxay toos loogu shubayaa civil aviation-ka dawladda civil aviation-ka marka loo shubo haddii wadankii aad tagtay ay wax ka dhacaan ama diyaaraddii dib u dhac uu ku imaado ama hawadii ay isbedesho waa aragtay dhowr golba folkaana dhacay diyaaraddii waxay ku leedahay laba dhoofi karo maadaama aan la dhoofi karin hotel baan ku seexinaynaa ayaga la wareegaya arrintaada hotel baa laga bixinaya cuntadaadii baa ku jirto wax kasta ku jiro waxa kale inta dheer haddii diyaaradda qalad samayso inaad adiga aad ku dhihi kartid aniga niyo maba idin raacayo lacagtaydii baan u baahanahay telephone baa ku yaal certificate-ka dadka la siin doono atal certificate-ka waxa ku yaala telephone 0207 soo wacaya civil aviation wuxuu leeyahay diyaaraddaas qaladkaas ay ugu samaysay halkaas ay joogtaa ani inaan noqdo ma rabo lacagtayda refund hal sameeyo lacagtiisa oo full meeshiisa lagu siinaya marka dadka Soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa intaan iska dayno ma aragtay ninkaanan asxaabnahay iyo ninkaanan saaxiibanahay iyo ninkaanan ma aragtay ilmo adeernahay adiga waxa mas'uul ka noqon kara dawladuna waa dawlad ka gacan weyn diyaaradaha aan raacayso sida oo kale xaqiijinayso hoteelada haduu package yahay in hotelkii lagu ballan qaaday hadii 5 star laga iibiyo oo travel agency ku geeyo 2 star xaq baa u leedahay in lacagtaada kalam garayso dawladuna ay 5 star ku geeyso insha Allah marka waxaan kula kalnayaa dadka inay travel agency-yada atalka xubinta ka ah ay mar walba la xiriiraan oo ay weydiiyaan hatta haday sign-ka arki waayaan atal albaabka arki waayaan inay weydiiyaan dhahan niyo atal member ma ka tahay ama cidda aan la shaqeyso
atal ma ku xiran tahay taas oo safarkiisa sii socod iyo soo socodba xaqiiq ka dhigayso inuu si nabada ku tago si nabadana kusoo laabto insha allah biidni illahi tacaala aad iyo aad baad umahadsan tahay cabdiweli sidaad ugu sharaxday dadka laynka telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أجمع دقيقة ها والله الوقت سود وينيا مقعقة أخي أم أبو بكر وهي هيه أنا وحا إيويدي عبد الولي باكج كي إيست هوليداي وهدر تنسمينا أيو ها إنه دار الغفران ندجينا إنكالي حقي ويا تري دار الغفران أدي إنه حاجكي أنا وراعي هيه marka hotelku nadaji wala aad u fiicnay marka hadii lagu laabanayo east holiday umra ahaan inuu nadajinayo meeshaas iyo inay tahay gabadha hadda ku harbay tagtay meesha marka waxay ku tiri cimradan soo socotay 4 la baxayo meesha la degaya halka mata waa meel ay jeclaysan waxaan u maleynayaa inay tiri Abubakar way xajkii ugu dambeeyeen raacday waa gartay waxaaba ka soo wareegtaan u maleynayaa 5 bilood waa gartay daaru qufraan hotelkii laftigiisa la degaya hadda la degaya ay taqaanay oo ay aragtay oo xajka ay degtay aad iyo aad marka waxaan insha Allah u rajeynayaa 15 kaas qof oo dhiman haday nasiib u yeelato loogana yeero ilaa waa la isaga yeeray xajkii umrada aad iyo aad waa halkii iyo bartii iyo servicekii wala caana insha Allah hotelkan kale weyn ee la yiraahdo Grand Samsam asaga ka war waa isku meel waa isku dhageen aad iyo labada waxay ku yaalaan saacada cagto aad iyo aad saacada waxa ku yaalo walaalo xajka ها والله لو كمغلي أبو بكر gudinaysan hadana holiday noo ahay aad iyo aad ma isla baa la degaya buu cibaadada in la badiyo walaa wax ka fiican male isla baa la degaya buu yiri marka sidaa ula soco waad jeclaysatay waana jeclaysan doontaa hadii alla ka dhigo insha Allah ilaahay hana wada geeyo anagana kuligeena aad iyo aad baad umahadsantaa walaalo laynka kale ayaan u gudbayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halo assalaamu calaykum walaal waa ku soo dhaweynaya magacaaga halkaa joogtid waxa la yiraahdaa hooyo Soomaaliyeed haye waxaan joogaa Holland haye waxaan rabaa information inaan weydiiyo dadka Hargeysa laba qof oo jooga hooyaday iyo wiil ay dhashay amti qiimaha ay ku tagi karaan oo kale aan garanayn marka waxaan rabaa isaan u ogaan lahaa yani dhulka barakeysanad u jeedaa xajka ma hayaan cimrada laba qof oo joogta Hargeysa oo kale xajka hooyo iyo wiilkeeda oo kale oo wadaya oo kale arinta kor waxay hooyo wiilkeeda waxay joogan Hargeysa joogan إن شاء الله ولا شيء هولن كسر هذا سمر كور سلامته وكقعدنا خير إن الله سيه دتك كنا وحكي بحسن يوروب وحكليه أي كسر دوفي كران ودن كاس أي دقيقين لأن حجك وحلا لو قلت لك قفل بودن كوكائم هذا إنه كسر حجيه حديثا أهين ودمدة يوروبيان يونين كا مركتاسنا أسبابتك أنت وحا ويقفك هدي وحكود عن هدو بنته وإن لي يقان حجيك يمي لكن هدي لو قف إجلن جوجو وحكي حجيه كرا صوماليا هدو وحي كيني سقفك حتى هدي دب كود عضو إلا أقوم واي بدك سابسن قيمها مثلا قفك هرجيسة إلا تام كوب أنت مسوي أنت فاين ديرات aniga laftigayga sanadkan hooyaday waxaan ka keenay Soomaaliya haye 3600 dollar baa lagu soo qaaday dadka Soomaaliya laga keenayo inkastoo dadka Soomaaliya la dejiyo meel aad uga fog xaramka dadka imaanayana kulli ay u badan yihiin dad waaweyn marka insha Allah 3600 baan ku qiyaastii 3600 qofka Hargeysa oo kale ka imanaya dabcan isla degaankii waa geeska Afrika 3600 ويان قفكنا وحكي ساعدين كرا إمسا ولكن لو قاعد لبض قف هو ويل كيد مركا لبض قف هلكي قف مركا تضبكون يلا بقول بين غني ساعة $1 مركا سيد مركا ولا حديد كران isagu waxa wanaagsan telefoonka shaashada ku qoran inaad qoratid oo aad si gaar ah uga sheekaysatid arintaas maadaama ay ka baxsan tahay Europe iyo UK hadda la ka dhigo walaal aad baad noo maadsan tahay linka kale ee telefoonka salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh halo salaamu calaykum calaykum asalaam walaal يورن وافعنا هذه ستاي الحمد لله لا ما له مقعقة مقعي وعثمان from Manchester هيا عثمان كسر دو ملا سعت برنامجك والله الحمد لله عادي عادي وقف سلامي هيا ولا ها تي في اسك جاب عثمانو waxaan ku weydiin lahaa cabdi yarka waxaan weydiin lahaa ha last year summerka ha gabdho walaalahayga London degan ayaa waxay goosteen ticket oo Muqdisho ah haye London to Muqdisho haye diyaaradii oo Greek iska lahayd haye maalintii flight ku qornaa airportka markay tageen ha flight ma jira la yiri inta markay ka baxayeen ha haye
diyaaradii Greega ninka Greeg iska lahaa waa fly Olympiga la yiraahdo aye marka ay carruurtooda $1,000 ka gashay $1,000 ka gashay waa gartay ilaa iyo hadda information raadinayna dadkiina waxay leeyihiin lacagta anaga ma hayno ninkii Greega ahaa lacagta hayo bal haddii uu injineerka uu wax faahfaahin naga sii karo ama meel loo maraayo cagmadhigo arrintaas yani waa ku fahmay maadaama uu yahay maamulihii intuu ka ogaan karo qaabkaad u mari kartaan maadaama asaga aysan qusaynin asna aan laga goynin sidaan qiyaasayo shirkadaasna uusan ahayn cabdiweli maxaad fikrad ka siin kartaa Cismaan arrintaas والله عثمان horta waa salaamaya marka ugu horeyso marka labaad aad baan uga mahad celinayaa su'aashiisa uu naweydiyay diyaaradaas fly Olympic horta maalmihii ay bilaabanayso waana loo keenay aniga shakhsi ahaan Furqan Travel maadaama masuulaan ka ay raggi ii keenay waxaan ku iri diyaaradan systemka GDS ka oo diyaaradaha miyay ku jirtaa sax maya igu dhaheen waxaan ku dhahay nimayo aniga marka masuulka ma noqon karo tigidna idima iibin karo assalaamu calaykum waan ogahay in ayagoo dadkii qayb Soomaaliya ba joogtay ay istaagtay marka Cismaan waxaan ku biirinayaa travel agency aad tigidka ka goosateen hadduu atal member yahay de travel agency ga idin soo dhicin kara travel agency ga la hadlo aad iyo aad Cismaan waa maqlaysaa Soomaha laakiin travel agency ilaa iyo hadda waxa wada taaganahay wallahi anigi waxaan ka war sugayaa qoladii Greega ahaa loo taagay aad iyo aad laakiin wuxuu ku yiri haday atal ku jiraan waxa weeye fursad waxay haystaan waxaagii aad ku heli kartid buu ku yiri shirkadda la xiriir hay'adda atal ma ku jirtiin arrimahaas weydiiya dawladda uga soo maaragtay hadii ka dhigo uga wakiil noqonaysa insha Allah aad baad u mahadsantahay Cismaan adigoo jooga Manchester laynka kale ee telefoonka assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh hello assalaamu calaykum calaykum assalaam waa ku soo dhaweynaya magacaaga halka joogto walaalo magacayga Abu Faadumo Xaaji la yiraahdaa TV Universal niyiguma jirta waa feertana hadlay gabdha ay soo siiyo waxay yiraahdeen agency-ga tigidhada ka jarana maanta caaw Universal fadhiya si fiican marka maxaa su'aashaadu tahay masahanbaliyad wadaa ambaliya waxaan wadaa inay agency fiican yihiin macaamiil fiican yihiin laba mar baan aniga tigidh ka goostay Dubai iyo Soomaaliya haye marka waxaan dadku soo jeedin lahaa agency haday tigidh u baahan yihiin agency-gaas ka jartaan macaamiil fiicanna waa wiilasha aad bay u fiican yihiin dadku soo dhaweeyaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay isaguna waa kaaga mahad celinayaa waana codkaagana wuu maqlayaa waad mahadsan tahay walaalo waxaan u rajeynayaa inaad mar kale aad ku soo biiri doontid macaamiisha haddii alla ka dhigo aad baad u mahadsan tahay soo jeedintaada laynka kale ee telefoonka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh wacalaykum assalaam waraxmatullahi walaalo waa idin salaamay adiga iyo inanka kaleba waxaan soo hadlayaa Manchester haye walaal waxaan rabaa inaan ogaado sida ay dadka Manchester ay ula shaqeeyaan baan rabaa inaan ogaado arbaha haday tahay Soomaaliya walaal aad baad u mahadsan tahay Manchester bay joogtaa Birmingham kama foga halkaas waa sidee ay markay baxayso kula soo xiriir kartaa waxaan u maleynayaa gabadhii hadda ka horeysay oo Faadumo ayada laftigeeda Manchester bay degan tahay dad badan oo Manchester joogana way nagu soo xirtay ayadana way naga goosataa marka haday telefoonka TV-ga ka qorato telefoon bay noo soo diraysaa tigidhka ay rabtaa loo goynayaa email baa loogu dirayaa markay aragto iska jeegarayso magacyadii lacagta bangiga ku soo shubaysaa insha Allah hadii alla ka dhigo waad maqashay walaal Soomaha dad ku jirta laynka wali waagaag waa hooyo Soomaaliyeed oo degan Manchester oo aan filayo in qaybtan ay ka maqli doonto shaashada ay ka qoran doonto telefoonka si ay ula soo xiriirto oo kadibna isgaarsiinta noocaasi iyagoon isarkinba ay ku dhameysan karaan xagga tigidhka iyo xagga lacagta intaba dad badan inay sidaas sameyn karaan haddii alla ka dhigo laynka kale ee telefoonka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatuh waa ku soo dhaweynaya walaal magacaaga halkaa joogtid walaal magacayga waxaa la dhahaa Abubakar waxaan weydiin lahaa inanka su'aal haye su-aashaas waxa inay miyaad jartaan diyaaradan fly Dubai la yidhaha iminka cusub fly Dubai baa la yidhaha cusubta halkee bay saldhigeedu waa xagee Dubai bay ka baxaysaa laakiin waxaa laygu yidhi March bay bilaabmaysaa marka hadday jaraan su-aal baan ka weydiin lahaa waa hagaag wuxuu ku leeyahay fly Dubai buu yidhi diyaarad la yidhaha jirta koleytaba annaga waxaan arki jirnay xayeysiinta oo ah fly Emirates aqbaliga walaalka waa mahadsan yahay aad iyo aad fly Dubai waa curadkii
fly imaaraat aad iyo aad fly imaaraat ayaa iska leh waa gartay waqtigeeda waxay u dhooftaa meelaha aan Yurub ahayn sida Middle Eastiga Africa ay u dhooftaa hadeerna waa diyaaradii hadayta aan ka sharqaminay aad iyo aad oo Hargeysa tagaysay aad iyo aad marka imaaraat ba halkan ka qaadayso Dubai markay goyso meesha Jubba ay ka qaadi lahayd fly Dubai baa lagu wareejinayaa ayaa ku qaadaysa tigidkana imaaraat baa iska wada leh halkaana laga wada goyn karaa halkaana tigidka laga wada goyn karaa aad iyo aad marka bishan March bay bilaabanaysaa aad iyo aad de mustaqbalka iyo future-ka wax ka soo noqon doono annaga war uma hayno laakiin warkana soo gaaray iyo systemka sidaan ka aragna waa saas aad iyo aad Abubakar hadaad ku jirtid line-ka wali Emirates dalka ka raacaysa ama British Airways taa doontid kadibna connection baa la sameeyaa bishanina bilaabanaysaa buu yiri faahfaahinta kalena de waxa laga daawanayaa goobaha ay ku taalay website-kooda arrimaha kale oo dhici doonana annaga ma ogin buu ku yiri Allah awood leh baa og صحات بد محسن هذا مدن halkani waa universal linka kale ee telefoonka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waraxmatullahi wabarakaatuh agtaxaji adiga iyo yarka kaleba waa in salaamay walaalo magacayga xaawa la yiraahdaa waxaan ka soo wacay London hayo xaawo waa mahadsantahay oo soo dhaweynina walaal waxaan rabaa inaan weydiiyo tigidhada Soomaaliya hadda samarka meeqay ku goynayaan samarka ma tir walaalo from London to Mogadishu or to Hargeysa meelay taaba aad iyo tigidhka samarka xalkiisu waa culus yahay xogaa hadii kuleelka la gaaro dadku ay dhididayaan arrinta ka waran Soomaalidu waxa moodaa inay hadeer ay noqdeen dad horay wax u goosto si fiican waagi hore waqti ugu dambeeyay goosan jireen aad iyo aad tigidhada samarka Soomaaliya dadkii waxay bilaabeen bishii 11aad inta baxajkii markii laga soo laabtay ay bilaabeen ilaa hadeerna waa la goynayaa kulay sidii maanta igu dameysay 860 marka laga baxo halkan ilaa Muqdisho oo kale ilaa Muqdisho 860 gani hadii ay raacayso Imaaraat Jubba hadii Turkish Airlines raacaysana 920 baan arkay maxaa kala badinaya 100 baa ku jirta meeshaas waxa kala badinaya Turkish Airlines waa diyaarad international oo ayaatada kamid Muqdisho sida aan ognahay ayaatada ayaa insurance-ka ku qaaliyeysay waxa la yiri wadan waxa tagtay riskigiisu uu badan yahay laga yaabo inay wax kugu dhacaan marka sida daraadeed insurance-kiba ayaatada ku qaaliyeysay waa hadda xaafadaha London oo kale gaariga insurance ma isku lacag ba meelaha tuugada badan insurance-gooda cirku galaya aad baad u mahadsantahay waxaan filayaa dad badan inay fahmeen sababta Turkigu ay lacagteedu u badan tahay calaykum asalaam walaal waa ku soo dhaweynaa walaal waa maxaamiisha cabdi ahay marka ii sheeg waa ku sheegay soo dhawow يا مالي بقى لقى درسوا أقصى لعبوا هاي محاد أورا لهاد مركا مالك معنا أورا وانين أونيستا أفكر تغاني وحلقودها وانين يعني دا عدويا دا عدوي أيوة شرحنا نقنا هاي مركا وانين في عن إلا حمران معناها يتيروا يقوي سيفي عن واحد واتان لما كل من إلا إيربوركا إيربوركا إنجليزكا إلا إيربوركا حمرنا ولا سو حريداي aad iyo aad baad u mahadsantahay marka waxaad leedahay waa nin aad oo shaqadiisa uga adag oo daacad ka ah aad baad u mahadsantahay waa ku soo dhaweynaya maalig waxaan rajeynayaa aniga mar kasta oo baxayna isaga la raacay insha Allah haddii aan leeyahay dadkaaga kale asxaabtaada asaasaad la socodsiin doontaa waagaag cabdi weli dadku intooda badan waa isku af maadaama isku af yihiin waxay muujinayaan wanaag badan inay ka tabanayaan waxayna rajeynayaan asagii mid lamid ah iyo dadka kale cusub biidnillaahi kariim iminkana adiga ka dhawaajiyeen cumradii ay soo dhowdahay marka ereyadaada ugu dambeeya maadaama aad tahay maamulihii iyo mulkilihii Furqaan Travel Soomaaliduna aad bay u safartaa haddana waxaad tiri way fahmeen inay sii goostaan tikitka maxaad oran lahayd agbadigo aniga kulli qalbigayga waxa ka guuxayo su'aalo badan oo laftigeeda customerka mar walba ay weydiiyaan iga imaado su'aasha ugu horeyso qalbigayga ka guuxayaan waxa waaye qofka hadduu horay u sii tabaabushaysto ciyaal baa meesha lagu haystaa faamiladii waa balaaran yihiin haddii sanad ka hor haddaad ogtahay sanadkan inaadan baxaynin sanadka dambe haddaad isku tamaniyeyso ama qalbadaada ku jirto inaad Soomaaliya aadid hadda sii bilow halkaas waxaad dhici karto in faamilka 7-8 qof ay 2,000 oo pound ay save gareeyaan haddii aad daahdid waxa ku qasbantahay sida faamila samarkii la soo dhaafay hal nin baan waxaan ugu gooyay tigid Muqdisho 1,500 pound waa gartay hadduu ninkaas imaan lahaa 6 bilood ka hor waxa dhici lahayd 800 in lagu gooyo waxaan kaloo ku waanin lahaa dadka Soomaalida travel agency-yada markay imaadaan inay afkooda ay ka daayaan tigid raqiis ay sax ay dhahaan niyow inaan safraan rabaa bini aadan baan wax kasta ay ku dhici karo tigid haddii wax igu dhacaan aan bedeli karo isii igogo laana maxaa yeelay adduunka waa la waayay wax raqiis oo fiican isma galaan
waxna isma dheera waxaa laga yaabaa tigidka la bedeli kara iyo tigidka raqiiska ku doonaya inay 100 baan u dhaxeeyaan sida oo kale inay travel agency-ga weydiiyaan tigidkan haddaanba joogo oo aanba bixi waaya ama qof iga dhinto ama waxa igu dhacaan lacag ma liisoo celinaya tigidkan tigid la bedeli karo lacag la soo celin karana maya waxaan kaloo ku warin lahaa bil ka hor gabar baa 3 maalmood oo isku xigto Heathrow Airport aan tigid Ethiopian Airlines uga gooyo Hargeysa u socotay diyaaradda ay ka tagtay maxay uga tagtay London bay degan tahay London waa zaxmad 3 maalmood waa dahday 3 maalmoodba waxay bixisay maalintii ugu yareed 270 pound laana tigidka airportka markaa ka dahday waxa ku dhacaya wax la dhaho no show micnaheedu waxa waay qofkan ma imaan airportka diyaaradda marka waxay ku judge garaynaysaa penalty in tigidka lagu bedelaa iyo tii soo dahday marka dadka Soomaalida waxaan ka codsan lahaa in ay ilaaliyaan timeka diyaaradda sideeda kale ayaamahan airportada 3 saac ka hor in la sii tagaa la jideeyay laana 3 saacadood waxba la baaraya marka waxay dhihi jireen Soomaalida hore khayr wax kaama dhimee shar u tag hay marka airportka waqti hore inay tagaan oo waliba ay ku xisaabtamaan wadada ay marayaan roob baa dhici karo traffic baa dhici karo tareenka daahi karo signalka failure noqon karo marka waxaan dadka Soomaalida ka codsanayaa mar walba in ay horumaraan airportada marka ay tagaan tigidka raqiiskan ay u bedelaan tigid haday wax dhacaan ilaa naftan Ilaahay baa og meesha jirtay la ii soo celin karo ama aan bedeli karo badankoodna caruur bay wataan adigoo caruur wato tigid baa goosatay waxa lagu yiri maanta aabaha baa dhintay bari baa dhoofaysaa tigidkii lacag laguma soo celin karo waa ka qasaartay marka insha Allah inay dadka ka faa'iidaan ay informationka aad ay u raadiyaan inkastoo dadka Soomaaliyeed aysan ahayn dad wax badan wax aqriyo laakiin ma aragtay maqalka iyo aad bay ugu dheerayaan marka arinta dhagtooda aad ugu furan ugu dambeystii waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo su'aal dadku ay isweydiin karaan dad badan ayaa Soomaaliya jooga oo dadka ehla ah waalidkoodii qaraabadoodii asxaabtoodii xididkoodii dariskoodii waxay rabaan ayagoo London jooga inay ticket u gooyaan ka imanaya Muqdisho tagaya Dubai ama tagaya xajka oo kale ama umrada ama tagaya Europe meel kamida ticketkaas inta ma looga gooyi karaa qofkiina ma ku soo bixi karaa mise waxa shuruud in halka laga bilaabo agmadigow su'aashaas waa su'aal aad u muhiim ah horta tigidka sideedaba GDS-ka ama systemka tigidhada loogu talagalay in laga gooyo magaalo walbo adduunka ku taalo oo diyaarad ayba tagto wuu ka bilaabanaya qofka qasab ma inuu London kaliya joogo haddeertaan bishii la soo dhaafay faamilo ka badan baa laga yaabaa 25 qof oo Finland joogo ba ayagoo Finland joogo waxaan uga gooyay inay Helsinki ka baxaan oo Hargeysa tagaan Hargeysa ka soo noqdaan Helsinki ku soo noqdaan faamilada hadduu qof Soomaaliya ka jiro tigid waa naga dalban kartaa asoo Soomaaliya jiro tigidkii adaan ku goynina email baa ugu diraysaa laana tigidkii waxa laga dhigay haddeer tigid qofka magaciisa mar walba oo la geliyo tigidka airportka markuu tago waa la iswaab gareynaya xajka ku soo hartay aniga kula hadlay waaniga ku sheegay sanadkan hooyadii waan Soomaaliya ka soo xajisiyay hooyo markay Soomaaliya la iga keenay ana la soo wareegay marka qofkii aniga iraaco customer hadduu waalidkii Soomaaliya ka imaado xataa hoteelada xaramka u dhow iyo service-ka wanaagsan waa naga qayb gali karaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan u mahad celinayaa Cabdiweli maamulaha guud iyo mulkiilaha shirkadda Furqaan Travel ee fadhigeedu yahay magaalada Birmingham lama kala duwana ku leh guud ahaan caalamka sida wadanka Istaga Imaaraadka Carabta iyo Soomaaliya oo kale iyo meelo badan oo laga abaabulayo laakiin iyadoo haddana aanay xarumihii jirinin in xiriirka noocaas uu sheegay ay jiraan intii soo hadashay waa u mahad celinayaa macaamilka la sameysay iyo kuwa kale dheehanaya ee jecel macaamilka inay la sameeyaan mar kale waxaan u mahad celinaynaa guud ahaanba shaqaalaha Furqaan Travel meel kastoo dunida ay ka joogaan sida ay bulshada ugu adeegaan waxaan u mahad celinayaa Cabdirashiid Maxamed Nuur Rashka iyo waliba Cali Naaji oo iyaguna dhinaca farsamada meel kastoo aad joogtaan intaan u yarahay una weynahay iyo inta jinkiga daawadeel oo dhamaantiina aniga iyo Cabdiweli waxaan idin leenahay ismaana dhaafine wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh bulshay meel kastoo aad joogtaanba waxaan idin hayaa fariin cusub oo waa tuma waa sharikadda duulimaadada ee tikadhada ee Furqaan Travel ee ku taala bartamaha Birmingham oo idinkugu qadmeynaysa si la yaab leh hufan oo wanaagsan oo aad loo jeclaystay dalkii hooyadaad booqanaysa iyo dhulka barakaysan Maka al-Mukarrama Madiinatul Munawwara dadka doonaya inay xajka iyo umrada tagaan waxay ugu talagaleen diyaarado toos oo British Airways London ilaa iyo Jidda kadibna la dejinayo hotelka weyn ee Grand Samsam ee ka soo horjeeda xaramka iyo kan kale Madiina ee isaguna 5 star-ka oo dhamaantoodba 5 star ay yihiin Royal Rayyan kadibna waxaa la dejinayaa maalmaha kadib taambuugada ama teendhooyinka casriga ee VIP-da meel kastoo aad joogtaan yaa la moogaan inaad khidmadiina iyo hawlihiinaba u dirsataan
furqaan travel intii horay uga qidmaysay aad u jeclaysatay inta kalena ay jeclaysan doonaan anaa jeclaystay iyadaa jeclaystay isagaa jeclaystay kulligoodaa jeclaystay adinkuna jeclaada furqaan travel yaan la moogaan hawsha idiin qabatana waa la hubiyey waxaana ay xubin ka tahay hay-adda caalamiga ah ee atol oo ah mid iyadoo hubinaysa safaradaada iyo socodkaaga sii socod iyo soo socodba hadal badani ahaan ma buuxiyee la xidhiira maamulaha sare cabdiweli iyo asxaabtiisa oo gacmo furan iyo niyad samaan idinku soo dhoweynaya wixii faahfaahin ah shaashadda ka